halyeygii Afrika ee ay dileen reer galbeedku iyagoo u adeegsaday saaxiibkiisii ugu dhawaa. Thomas Sankara wuxuu ahaa mid aad u dhimo mushaharkiisa iyo kharashaadka dawladeed ee isaga ku baxa. Waxa uu diiday kaalmada reer galbeedka isagoo uu yiri cidda wax ku siisa waa cidda ku maamusha. Markuu xilka qabtay waxa uu xaraashay dhammaan baabuurtii Mercedes-ka ahayd ay ku socon jirtay madaxda dawladdu isagoo ku bedelay gaarigii ugu raqiisanaa ee dalka yaalay. fadlan like saar muuqaalka si shargarool wadaag asxaabtaada aad iyo aad baad u mahadsantahay. Thomas Sankara wuxuu 22 bishii 12 sanadkii 1949 ku dhashay tuulada Yako ee dalkii lagu magacaabi jiray Aberfolta xilligii gumaysigii Faransiiska. dalkaasi oo maanta loo yaqaano Burkina Faso. magacan cusub ee Burkina Fasona waxa uu bixiyay Thomas Sankara naftarkiisa. Thomas Sankara waxa uu ahaa ilmaha saddexaad ee 10 carruur oo ay waalidkiis dhaleen. aabihiis waxa uu ahaa askari boolis militariya oo ka tirsan ciidankii gumaysigii Faransiiska. Thomas iyo qoyskiisu waxay ku noolaayeen nolol ka sarreysa midda dadka kale. waxa ayna degenaayeen guri daar ah oo ku yaalay xaafad ay deganaayeen dadka u shaqeeya Faransiiska. Thomas waxa lagu daray dugsigii hoose ee magaalada Bobo Dioulasso, waxaana noqday mid aad ugu fiican waxbarashada, gaar ahaan xisaabta iyo afka Faransiiska. markii uu dhameeyay dugsiga hoose dhexe, waxa uu ku biiray dugsigii sare ee Eugene Coulibaly. dugsigaasi ayayna isku barteen saaxiibo badan oo ka mid yahay Fidel Lato oo waagii dambe uu wasiir ka dhigay, iyo sidoo kale saaxiibo kale oo tiro badan. Thomas Sankara aabihiis wuxuu ahaa Kirishtan, gaar ahaan madhabta Roman Katoliga, wuxuuna doonayay in uu wiilkiisa Thomas uu ka dhigo baadari ama wadaad kaniisadeed. balse Thomas waxa uu doortay inuu ku biiro ciidamada oo xilligaas dhalinyaradu aad u xiiseynayeen. waxauna ku biiray akadeemiyadii tababarka saraakiisha ee Kodogo oo ku taalay magaalada Wagadugu ee caasimadda dalkaas. tababarka saraakiisha cusub kaliya ma aanay bixin jirin tababaryaal ciidan ee sidoo kale waxaa qayb ka ahaa barofesoro uu ka mid yahay Professor Adama Toure. Professor Toure ayaa xilligaasi saraakiisha cusub bari jiray taariikhda iyo juqraafiga, sidoo kalena xilligaas wuxuu ahaa agaasimaha tacliinta. sidoo kale Professor Toure wuxuu lahaa aragtiyo horusocod leh, balse kama aanu sheegi jirin fagaarayaasha. balse qayb ka mid ah ardaydiisa kuwooda firfircoon oo uu ka mid yahay Thomas Sankara ayuu aragtiyihiisa kala munaaqashoon jiray meel ka baxsan fasalka. Professor Toure iyo ardaydiisu waxay ka munaaqashoon jireen aragtiyaha imperialismka iyo sidoo kale neo-colonialismka oo labadooduba ah gumaysi dadban oo dhaqaale iyo siyaasadeed. labadan eray ayaan u waayay erayo Soomaali oo ku habboon. haddii aad garanayso qaybta commentiga nagula wadaag. sidoo kale waxay ka munaaqashoon jireen hanti wadaagga, shuuciyadda, Soofiyeedka, kacdoomada dhaqaale ee Shiinaha, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada xorriyadoon ee ka socda qaaradda Afrika iyo mawduucyo kale oo aad u tiro badan. markaasina waxay ahayd xilligii ugu horreysay ee uu Thomas Sankara fahmay nidaamyada iyo sistamyada ka shaqeeya caalamka. sanadkii 1970kii Thomas Sankara oo 19 jir ah ayaa tababaro iyo daraasaad ciidan oo dheeraad ah loogu diray jasiiradda Madagascar.